Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Halkan waxaan idinkaga soo jeedi doonaa haddii la yidhaahdo casharadeen imtixaan ahay mid ka mid ah kaasoo caawa ku saabsan dabcan sidaad hore ula socoteenba waxaan installation ku sameynay configuration ku sameynay DHCP iyo Active Directory Domain Service sidoo kale DNS dabcan caawa waxaan maaragtay qayb ka mid a configuration ku sameynay DNS-ka. DNS-ku dabcan wuxuu qabtaa waa domain name system ama service labadaba maaragtay waa loo yaqaanaa system iyo service. Caawa waxaan doonaynaa marka dabcan wuxuu qabtaa waxa weeyaan dabcan inuu magaca u bedelo IP address-ka isla qayb ka midana oo maaragtay reserve la yiraahdo waxay dabcan isla qaybtaasna waxaa loo bedelaa ay u bedeshaa IP address-ka ay magac u bedeshaa. Marka waxaan dabcan arki doonaa markaan gudaha u galno haddii la yiraahdo waxaan tegaynaa tools DNS ayaan leenahay. Halkan sidaad ku arkaysaanba forward lookup zones waa qaybta maaragtay magaca u bedesha maaragtay IP address-ka. haddaan gudaha u sii galno waan sii tagno qaybtan waxaad arkaysaan magaca client one oo kale host name-ka oo iyo IP address-ka. haddaad halkan sii aragtaana oo dabcan serverka magaciisa iyo IP address-kiisa. marka qaybtaasu waxay ku saabsan tahay magaca iyo IP address-kaasi maaragtay ay isku bedeleysaa. Okay, haddii dabcan aad doonayso inaad configureyso laba meelba maaragtay ama saddex meelba waa looga dari karaa soonka. halkan right kaliya aad ku dhigi kartaa waxaad tegeysaa markaad rabto inaad ku darto new host ayaad leedahay. markaad rabto inaad maaragtay aad ku darto host cusub oo kale isla qaybtan ayaad right kale ku leedahay halkan looga dari karaa ayadoo qaybtan selected ku ah oo kuu dooran halkan waa maaragtay waa looga dari karaa. marka dhowrkaas optionba waa loo adeegsan karaa. hadda marka haddii aan doonayno dabcan inaan qaybta haddaan gudaha usii tagno waxaan ku daraynaa haddii la yiraahdo new zone ayaan ku daraynaa haddii la yiraahdo. Okay, new zone-kan oo dabcan sida halkan magaca ku aragtaan ama qaybtan dadka arsaan aad aragtaan waa the domain name system. DNS allows the DNS namespace to be divided into the zones. Each zone stores information about one or more contiguous DNS domain. To add new zone, on the action menu, click new zone. marka qaybtan waxaa dabcan ay sameyneysaa IP address ayay magac u bedeleysaa. halka qaybtan aan ku arkayno magaca
iyo IP addresska marka waa bilcagsi ama opposite waa iska soo horjeed marka qaybtan right click inta ku nidhaahno saan u soo sheegnaba waa halkan waan ka tegi karnaa tan waxay noo sheegaysaa action menu qaybtaas inaan ka tagno iyadana halkan waan ka isticmaali karnaa marka laba option buu taas waa noo furan tahay nation markaan ka hadlayno okay hadda haddaan ku darno halkan ayaad ku arkaysaan sidaas halkan ka arkaysaanba a zone translates DNS names to related data such as IP address or network services marka waxaan leenahay next qaybta horesaan qaadanaynaa primary waxaan leenahay next okay qaybtan haddaad akhrisaan halkan ka fiirisaan active directory zone replication scope ayay qaybtan samaynaysaa select how you want to zone data replicated the domain controls in this domain or to all DNS servers running domain controllers in this domain load up so qaybtaas ayaan maaragtay aan noo badan ayaan kala kulanahay halkan waxaan isticmaalaynaa waa IP version 4 keligaan ku leenahay IP addresska aan doonayna marka reverse lookup zone nameka aan ku sameynayno reverse lookup zone translates IP address to domain names marka halkan waxaan gelinaa marka IP addresska 192.168.2.1.1 sorry 192.168.2.1.1 okay waxaan leenahay طبعا halkan waa akrinaysaan dynamic update ayuu sameynayaa marka allow only security dynamic update commanded marka hadda waxaan ka qaadanaynaa dabcan tanaan ka qaadanaynaa oo ah do not allow dynamic update ha ogolaani maaragta dynamic update ha ogolaani next dan raahno successful halkan marka finish ayaad leedahay waxaan imaanaynaa halkaan imaanaynaa sidaan tagaynaa right keligaan ku leenahay marka new pointer ayaan gelaynaa marka aan maaragtay aan kusii maaragtay dabcan configuration ku sameeyo okay IP addresska ayaan maaragtay dhamaystiraynaa halkan host namekaan gelaynaa marka waxaan leenahay DLN minus TC minus D7 okay waxaan leenahay dot low daco.com okay aan ku leenahay okay okay kan waxaan ku daraynaa host nameka waxaan ku daraynaa
hoostana aan ku daraynaa waxaan leenahay www aan ka dhigaynaa okay IP addresska aan siinayno wuxuu noqonayaa 192.168.211.142 okay qaybtaas aan ku daynaynaa markaa ku daraan leenahay successful weeyaan okay aan leenahay marka kadib waxaan leenahay done okay marka waxaan doonaynaa inaan markaa fiirino waxaan baroobaynaynaa configuration hadda aan samaynay inuu noo shaqeynayo marka commandaha loo isticmaalo DNS-ka oo troubleshootka loogu sameeyo ayaan isticmaalaynaa haddii la yiraahdo commandahaas oo ah ns look up okay waa noo shaqeynaya haddaan nahno www.lowdarko.com lowdarko.com waa noo shaqeynayaa okay IP addresska haddaan galno 192.168.211.142 waa noo shaqeynayaa marka haddii aan kan hoos ka dhigno oo aan tagno waad dareemi kartaan dabcan qaybtan dhahno wuxuu u shaqeynayaa sidii loo baahnaayo u shaqeynayaa marka dabcan sidii loo baahnaayo u shaqeynayaa marka waxaa weeyaan dabcan wax kale oo dabcan uu qabanaya ma jirto DNS-ku dabcan wuxuu qabanayaa hawshiisu waxaa weeyaan in magaca uu bedelo sida halkan baad ku aragtaan IP addresska haddii bilmatal waxaad doonaysaa tusaale ahaan waxaad weydiisay qofaa weydiisay tiraahday cali faarax magacu doona ha ahaado ayaan waxaan doonayaa telephone numberkiisa magacii aad weydiisay marka magaca waa inuu marka sheegi karaya qofku yiraahdo magacaas okay lambarkaas ayuu leeyahay marka tusaale waa taas kaleeto waxaa waaye dabcan isla markii serverku ama xiriir loo soo sameeyo DNS-ka ee la weydiiyo la yiraahdo waxaan doonayaa magacan IP addresskiisa isla markii wuxuu keedsaday oo hayaa macnaha magacii iyo IP addresskii marka wuxuu isu fasirayaa oo macnaha fasiraad ku sameynayaa magaca ayuu wuxuu bedelayaa IP addresskaas oo u bedelayaa marka hawshiisu waa sidaas qaybtan waa bilcagsi meesha magaca aheed waxay ka dhig magacii waxay ka dhigaysaa IP addresskii maaragtay ay gudbinaysaa marka IP addresskii ayay magac u bedelaysaa meesha kii hore oo IP address magaca uu bedelayo IP addresska marka hawshiisu waa maaragtay dabcan waa sidaas
haddii marka aan tagno halkan aan tagno oo aan right kale ku dhinaacno developers haddaan tagno qaybtan haddaan tagno oo start of authority loo soo gaabiyey SOA haddaan tagno qaybtan dabcan markaad sameynaysaan imtixaanka aad sameynaysaan ayay aad muhiim kugu tahay oo maaragtay dabcan aad u baahantiin inaad ogaataan qaybtan waa refresh interval oo 15 minutes ah marka expirekeedu waa 1 day halkan ku aragtaan qaybtan waa maximumka waa 1 halkan waa hours aragtaan TLkan time to leave waad arkaysaan marka waa muhiim inaad sii fiirisaan oo qaybaha maaragtay aad sii gashaan marka cashirkeena maanta halkaas ayaan kusoo koobaynaa haddii ilaahay yidhaahdo tan iyo cashiradeenna xiga haddii ilaahay yidhaahdo waa mar kale ilowdhaaf waan kaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu